kusoo dhawaada channelkayga maanta waxaan iga sheekay doonaa sheeko yar gaaban oo ka dhacday wadanka Sacuudiga. Inanta sheekada ku dhacday waxaan u bixi doonaa Zainab wadanka Sacuudiga ayay joogtaa waxaana ka shaqeysaa mid kamid ah dhakhtaradaha ugu waaweyn wadanka Sacuudiga waxaana ka shaqeysaa qaybta kalkaaliye ayay ka shaqeysaa ama naarasta ayay u shaqeysaa. Zainab waa inan aad iyo aad muxtaramada oo wanaagsan oo akhlaaq diineed iyo mid habdhaqan leh waa mid dadka la dhaqmay ama dadka habdhaqankeeda ka bogeen ama u riyaaqeen ayay ka mid tahay waa inan aad iyo aad miskiina waa la qabaa oo caruur bay leedahay wadanka Sacuudiga ayaa lagu qabaa ninkeeda waxaan u bixi doonaa Cabdalle isaguna sidoo kale uu shaqeystaa wadanka Sacuudiga ayuu degan yahay oo ka shaqeystaa maalin maalmaha kamid ah ayaa hablaha asxaabta yihiin ee wada shaqeeyaan goobta ayay mid kamid ah ay weydiisay su'aal saaxiib Zainab maxaa mar waliba aad u faraxsan tahay mar waliba hawlaha adduunyo mayna ku jeexin mayna hawlaha adduunyo culays maad ka dareemin bay ku tiri saaxiib anagu kula shaqeynaa haddana maalmaha qaar waan faraxsanahay maalmaha qaarna waan murugsanahay adiga laakiin maxaa mar waliba ka farxiya mar waliba aad u faraxsan tahay bay ku tiri su'aashaas Zainab oo aad iyo aad u daacad u ahayd ayaa su'aashii ka jawaabtay waxay tiri saaxiib anigu waxaan leeyahay sooj wanaagsan oo Cabdalle la dhaho soojkaas oo aad iyo aad ii fiican sooj wanaagsan waxay xataa ka sheekaysay tafaasiisha ugu yareed ee gurigeeda Zainab mar waliba marka ka sii dambaysa odageeda aad iyo aad buu amaanaysay mar waliba sheekada ay sii furanto mar waliba amaanta ay sii badisay ay ahayd mar waliba xalhad ninkayga oo kaleeto ma helayo haddaan xataa ka tago ama ninkayga kaleeto qof u dhigma ma arki doono adduunka intaan joogo ninkayga waxyaalo badan sufaadkiisa ama dabeecadihiisa ama habdhaqankiisa ayay ka sheekeysay aad iyo aad bay u sii amaanaysay oo ugu faanaysay maadaama Ilaahay casawajal uu siiyay sooj wanaagsan oo baari u ah iyadoo ubadkeedaba iyo family-geedaba Zainab saaxiibadeed waxay bilaabeen su'aalo gaar ah inay weydiiyaan Zainab su'aalahaas oo gaarkood ahaayeen su'aalo barafada ama su'aalo u gaar u ah qoyska Zainab waxa soo dhan u su'aalay weydiinayaan hablaha saaxiibadeed way ka jawaabaysay su'aalahaas si hurgufnaan leh oo daacadnimo fara badan ku jirta ay uga jawaabaysay Zainab su'aalo waliba su'aashay weydiinayaan hablaha saaxiibadeed hablaha goobta fadhiyay waxay isku jiraan hablo guriga leh oo marwooyin iyo qaar guriga lahayn bay isku jiraan inan kamid ah goobta fadhiday ayaa aad iyo aad ugu riyaaqday sida quruxda badan ee Zainab u amaanaysay odageeda oo Cabdalle inantaasoo tiri soojkan oo aniga ay ugu qalma waan ka raadisiray in badan aan raadisiray weeye inantan waxay bilowday in laba cisho kadib inay raadiso nambarka Cabdalle si fitnaa waliba ugu jirto Zainab ay ogaanin ay u raadinaysay nambarka Cabdalle qof waliba isdhihi kartay nambarka Cabdalle ayaad ka heli kartaa ay weydiinaysay inantan waxaan u bixi doonaa Amira waxay jirtaa 30 jir hore u lama soo guursan waxaana qof waliba guur soo bandhiga ama qof waliba soo doonta waxay tiraahdaa qofkayga ma aha ama qofkan doonaya ma aha ayay tiraahdaa Amira waxay ka dhalatay qoys lacag leh magacna ku leh wadanka Sacuudiga muddo waxay raadisay nambarka Cabdalle way heshay Cabdalle ayay fariin u dirtay waxa ku tilmaamay Cabdalle wuxuu ku yiri haa waa Cabdalle waa tuma waxay tiri magacaygu Amira ayaa la yiraahdaa waxaan ka dhashay qoys lacag leh magac ku leh wadanka Sacuudiga waxaana u xustay magacii qoyskii Amira ay ka dhalatay waxaana Cabdalle ku yiri soo dhawo walaalo wuxuu ku yiri saan ku caawi karaa Amira waxay tiri waqti dheer kadib marka soo raadiyay nambarkaaga waqti dheer kadib markaan ka soo fakaray arrimo badan ayaa nambarka kula soo xiriiray Cabdalle wuxuu ku yiri kuma fahmin sidee yani wuxuu ku tiri Amira Cabdalle waxaan ka maqlay wax wanaag oo badan ayaan ka maqlay maadaama inaan aanahay hore u soo guursan hadalka maqlay waa aad iyo aad ugu riyaaqay maadaama tahay qof aad iyo aad ugu wanaagsan qoyskiisa maadaama tahay qof aad iyo aad u akhlaaq badan oo dhalinyarada iyo goobaha la isku imaadaba dhammaan ay dadku dhan ka mahad sheeganayaan maadaama tahay qof aad iyo aad diintaadu aad iyo aad u wanaagsan tahay baan ugu riyaaqay waliba waxa kaliya aad ugu sii riyaaqay bay tiri akhlaaqdaada iyo diintaada maadaama ku sii riyaaqeen waxaan doonayaa kaliya inaad guursatid aniga guur ku soo bandhigaya guur xalaal ayaan ka rabaa ayay ku tiri Cabdalle ayaa wuxuu ugu jawaabay gabar baan leeyahay iyo caruur baa ii jooga wuxuu ku tiri waan ogahay gabar iyo caruur ay ku jooga
wuxuu ku yidhi sidaad ku ogaatay waxaanad qabtaa bay ku tiri Zaynab wuxuu ku yidhi Zaynab oo sidaad ku sii ogaatay markaa Zaynab inay tahay wuxuu ku tiri waxaan Zaynab baan wada shaqeynaa isla goobta shaqada ayaan ka wada shaqeynaa Cabdalla ayaa adiga ugu xanaaqay Amiira waxaanu ku yidhi gurigayga doonaysa inaad iga burburisid maadaama Zaynab istaqaantaan may way tir wallaahi xasha Allah ma doonayo inaan burburiyo sidaad Zaynab u dhaqanay sidoo kale inaad anigana ii dhaqatid ayaan doonayaa Cabdalla ayaa ku yidhi hadda walaalan Charles kuma haye qof kale ku raayso insha Allah wad heli doontaa Cabdalla ay Amiira ayaa ku tiri wallaahi ma doonayo qof kale maadaama adiga wanaag oo dhan ka maqlay qofkan doonayana wixii aan ka rabay oo dhan يعني كاد حركي أديكم بانكوربا عبدالله يا كوري والله ولا المأوده مهركياga iyo geena gabarka labaad guursaday imikaba diyaaru ma hibuur qarashkiisa ma hayo Zaynabna la guursado ma labaad ma doonayo buu kuuri Amiira ayaa ku tiri wallahi shardi wali baad soo dhigatay ama shuruud wali baad soo dhigatina wana ogolahay wana aqbalaya laakiin hadda waxba haynin aniga ayaa wax waliba ku kaalmeelaya adigu xataa wax kaliya taa yani waxba bixinin aniga wax waliba bixi doona xataa meherkayga ana bixi doona oo ku sii doona kaliya toon adigu family-gayga oo iga soo doon ama family-gayga oo ku wargeli bay ku tiri wax walibana waan ogolahay bay ku tiri Cabdalle aad buu sheekadii la yaabay waxaana ku yiri walaalo suu wax barasho madihin yani adiga iga aqoon sareeya anu aqoonteeda wax badan yani aqoon badan ma dhigan suu leefar manihin waxa ku tiraan leefar iyo waxa ma doonayo waan ogahay inaad wax barasho fiican aad haysanin aad soo dhigan laakiin waa ku bogay oo kaliya taa waxaan doonayaa noqotid aabaha caruurteeda Amiira waxa ku tiri Cabdalle adiga mar waliba go'aanka ugu dambeeyay iska leh haka dad soo gartay karakaysaar oo ku mahsan tahay like-ta sidoo kale to anaga himaamin sheertana dad badan gaarsi sadoo sheekadan uga heshay qaar kale uga faa'iidaan wad ku mahsan tahay isla socod wanaagsan Amiira sheekada si wadato waxa ku tiri mar waliba ay laawinaan ahay qoyska ugu lacagta badan wadanka Sacuudiga ugu magaca dheer wadanka Sacuudiga waxaan wax ka badan baan ku sii karaa hadaad ogolaatid oo kaliya taan waxaan kaliya rabaa oo kaliya inaan ku guursado Amiira waxa ku tiri gorbaan ka sugi doona soo fikir waqtina qaado si fiican oo soo fikir Cabdalle ayaa qisadii aad la yaabay la taajubay marba wuxuu dhahaa tolo ma sameeysa oo maska ogolaata hadana wuxuu dhahaa may ama Zaynab iyo caruurteedu way ka xanaaqaan maadaama Zaynab ay tahay gabadh aad u wanaagsan oo boqorada oo nolosha duruufo adag ku soo gudbinaantay maanta inaad abaalkeeda sano ka tahay ugu gashid maaha hadana marka qaar wuxuu dhahaa waa Charles-ka ugu weynaa maadaama Amiira ay ka dhalatay qoyska ugu lacagta badan wadanka Sacuudiga ugu magaca dheer wadanka Sacuudiga maadaama Charles-kana qofka hera aad u yar yihiin ma ka faa'iideysataa bus dhaha hadana dhinaca kale ay u dhahaa may dadkan wadad yaqaana waa laba qof oo saaxiiba ama isku xumaadaan saaxiibkii ayuu la tashaday markay taradu ku cakiraatay saaxiibkii wuxuu ku yiri saaxiib Charles-kan oo kaleeto Charles dahabi weeye dadka kale dad badan baabana soo marin hadaad ka faa'iideyso ka weedo aniga ka faa'iideysaday Charles-kiisi saaxiib Charles-kan oo kaleeto luminin buu ku yiri Zaynabna waa caadi way ogolaad doontaa adigu sheeg buu ku yiri taladii saaxiibkii baa igu qaatay Amiira ayuu sheegay ku yiri waan ogolahay Cabdalle wuxuu ku xiray Amiira shuruudo waxaan ku yiri kow Zaynab ma ogaad doonta inaan isguursanay aniga si gaar ah ugu sheegi doona waqti kadib markay ka soo wareegto talabaad ee kale wuxuu ku yiri lacag qarash ama mid meher ah wax kale ma hayo anigu adiga la istibaray hayabay tiri xalaale waxa diyaarad shuruud waliba aniga diyaar ayaa u laahay wana ogolahay bay tiri waxaan ku tiri lacagta ku saxawli doona in numberka kaliya lacagta meherka ii soo sheeg iyo xalaale wixii qarashada ku baxaya goobtaas hayeeyo soo sheegay lacagtii ku baxaysay wala u dirtay hawsha sidii waa lagu dhameeyay sidii baa la isku meheriyay Amiira waxa ku tirmaan xaq u lahayn inaan bisha malabka u baxo wuxuu ku yiri xaq wadu leedahay laakiin waqtigeedii lama joogo Zaynab wayna ka shaqeynaysaa haday ogaato inaan iska baxay ama safar u baxay waxay tiri taas aday ku jirta
anigu xaq baan u leeyahay inaan u baxo bisha malabka ah. Zaynab hadda doontid waqtiga inta ugu badan hodhuma ka soo noqono la qaado. Imika laakiin xaq baan u leeyahay maadaama inaan ahay. Wuxuu ku yidhi waa yahay. Zaynab baa la hadli doonaa adna sii diyaar garow. Waxaanu ku yidhi Zaynab buu ku yidhi Zaynab waxaan u bixi doonaa hawl shaqo ah waddan kale muddo bilaana waa maqnaan doona. Haye bay tiri. Markuu soo noqday kadib hadiyadihii iyo muxuu ahaay wixii oo dhan la qaybsaday ayay habeen ku tiri ma wada hadli karnaa. Zaynab ayaa ku tiri Cabdalle ma wada hadli karnaa. Wuxuu ku yidhi haa. Wuxuu ku tiri ma shaqaad ku maqnaad mise hawlo kalaad ku maqnaad. Cabdalle ayaa naxay ku yidhi maxaad ka wadaa shaqaan ku maqnaa haa. Wuxuu ku yidhi shaqo ayaa ku maqnaa oo shaqada xagay ka jirtay ku tiri. Wuxuu yidhi shaqadii ayuu sharaxay. Wuxuu ku tiri anigu kuma aaminin hadalkaagana ma rumaysanin laakiin waxaan ogahay inaad shaqo ku maqnaan inaad guursatay kaliya tayaan ogahay bishii malabka inaad ku maqnaan. Wuxuu ku yidhi sidaad ku ogaatay. Waxay ku tiri Amiira ayaa dadka shaqaalaha goobta ka shaqeeya oo dhan oo u sheegtay inay la guursaday ina bishii malabkana u baxayso laakiin aniga dadkoo dhan way ogaay aniga unbaanan ogeyn oo layga wada qariyay. Si sarbeeda ayaa laygu sheegay inay Amiira guursatay si iyagoo doonaysay weeye inay arrinta si toos u ogaado may dooneen. Cabdalle ayaa xanaaqay uu tegay Amiira ayuu ku yidhi Amiira maxaad ka wadaa sidee ayaad ugu sheegtay Zaynab maana isku ogeyn inaad hawsha ka qarisid saaxiibadaha xataa kuwa kuula dhow oo kaliya family-ga ku koobtay. Waxay tiri hawshii dheereed waqtigii dheeraa ayaa ku soo koobay. Waxaan is iri maalin kasta been laguma jiri karay runta Zaynab hodhiga. Zaynabna hadday aqbalayso iyada ay jirta hadday aqbal weedan iyada jirta. Zaynab ayaa ku tiri Cabdalle laba shardi baad leedahay laba mid kala dooro amba inaad furtid amba inaad gabadh kale saddexaad aad guursatid. Cabdalle ayaa la yaabay arrintii. Wuxuu ku yidhi siday ku dhici kartaa waayo anigu imika ayaan caruus labaad ahay. Zaynab baa ku tiri waan doonayaa inaad gabadh saddexaad guursatid. Zaynab oo hadalkeeda sii wadata ayaa ku tiri Cabdalle qarash allaale qarashka ku bixi doona gabadhaada saddexaad ayaa anigu kaa qaabilaya oo wax allaale waxaad u baahan tahay oo dhan ayaan bixi doonaa maca mushaharkaaga bilooyinka soo socda oo dhan waan bixinaya anigaa bixinaya. Uu yaabay. Wuxuu ku yidhi walaa naga daa gabadha saddexaad labadiinoo kaliya tayaan ku filanahay. Wuxuu ku tiri labada mid ka mida dooro ama aniga labadeena kala tegayna ama gabadh saddexaad baad keeni doontaa. Cabdalle aad iyo aad buu sheekadu la yaabay uuna tacajub bay ku noqotay. Labada mid kala door ayay noqotay. Zaynab buu ka tegay. Wuxuu aaday Amiira waxaana ku yidhi Amiiray Zaynab waxay tiri laba mid kala doora amba ifur amba gabadh saddexaad guurso. Amiira ayaa soo booday. Waxay tiri waa caadi dhib ma laha guurso laakiin Zaynab afurin waayo Zaynab waa gabadhii xaaskaagii koowaad waana caruurta hooyadeed. Zaynab waa gabadh wanaagsan ay iska furin ay ku tiri ee gabadha saddexaad iska guurso. Gabadha wax allaale wixii qarashaad u baahan tahay oo dhan waan kaa caawi doonaa waana ku kabi doonaa. Wuxuu ku yidhi maca Zaynab ayaa qarashkii oo dhan iyo garab taagan oo tiri wax allaale waxaad doonaysay oo dhan waan kaa bixinaya. Wuxuu ku tiri dhib ma laha markay kaa go-aan amba wax kala dheeraad haddaad u baahatid aniga i weydiiso anima diyaar baan kula ahay. Cabdalle gabadhii saddexaad buu guursaday maadaama Zaynab ay tahay gabadhiisii hore ana wax badan durfooyin badan aynu isku soo qaateen isagoo faqiira isku soo wada jeexeen iyagoo yaraantoodii soo wada qaatay kama maarmi karin gabadhiisii hore inuu ka tago inuu Amiira ka tago oo u fududeed laakiin Zaynab ka tago way fududeed. gabadhii saddexaad ayuu guursaday. Halkan sheekadu way nagu dhamaanaysaa laakiin hal qodob halkan sheekadan ka barayna dhamaanteenba waxa weeye qodobka koowaad aan ka barayno nimcooyinka Ilaahay ku siiyay dadka qaar baan haysan nimcooyinkaas oo kale inaad dadka hortooda nimcooyinka Ilaahay ku siiyay ee kula fadlay
inaad ka sheekeenin oo xataa dad ka sheekeysina tafaasiisha yar ama waxyaalaha ku qarsoon ee Ilaahay kugu galaday inaad ka wada sheekeenin dadka qaar baa nimcooyinkaaga haysatid aanan muxuu ahay ku quuran wanaagga iyo wanaag ka sii badan inaad heshid ku quuray mar waliba nimcooyinkaad leedahay ama nimcooyinka Ilaahay kula fadlay amba hibooyinkaaga amba waxyaalahaaga ku gaarka ana qof waliba aad aragtina ka hor sheekeenin waayo Zainab haddii maalintii ka sheekeenin saaxiibadeed odageeda sidoo wanaagsan yahay Amira may caashaqdeen mana damacdeen waxa soo sheekana waxay u martay kaliya inaad daacad ahayd daacadnimada farbada marka qaar ba ku hoosagta inaad dhibaatooyin badan ku dhacdid walo Zainab ay tiri mar horeba aniga ayaa isku wacan waayo anigu saaxiibadahay ayaa wax waliba uga sheekaysiray fadliga nimcooyinka Ilaahay ii siiyay marka adiguna ka taxadir qofka nimcooyinka hortaada uga sheekaysid dadka qaar ba haysanin ba